afhayeenka ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Cabdilaahi Xasan Cabdi Dheere ahna hoggaanka howlgelinta ciidamada qaranka Somaliland oo ay weheliyaan taliyaha Aagabari Cali Barre iyo taliyaha ciidanka qaybta 11 doolaal iyo sidoo kale hoggaanka isgaarsiinta ciidamada booliska Somaliland ayaa ka warbixiyay dagaalkii saaka ka dhacay magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba deegaanada ku hareeraysan. taliya Cabdi Dheere ayaa faahfaahiyay khasaaraha laxaad kale ee ciidamada qaranka Somaliland ay soo gaarsiiyeen cadawga ku soo duulay tirada maxaabiista laga qabtay iyo hubka iyo saanada ay ka qabsadeen. maanta ay taariikhdu tahay 18 bisha saddexaad 2023 waxaan halkan kaga hadlayaa dagaal saaka abaara 4 mirir ka bilaabmay deegaanka fadhiisanada ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ku leeyahay gobolka Sool magaalo madaxdiisa Laascaanood nawaaxigeeda iyo taliska Gooja Cadde dagaalkaas oo aynu soo weerareen Puntland iyo san horeba u sheegnay ciidamadii isugu jiray deegaanka iyo al-shabaab ee ka dagaalamayay Laascaanood waxa markaati madoona inay toos noo soo weerareen ciidamada Puntland halka waxaan ku hayaa liis 14 qof 14 afar qof mooyaane 10 kaleba waxay sheegteen qabiilada kala duwan ee majeerteen qaarkood waa saraakiil sare gaashaan layaal taliye guutayaal baa ku jiray korneylo maxaabiis aanu gacanta ku hayno weeyaan aanu soo bandhigi doono haddii Allah awood leh ogolaado liiskoodina waa ka wala dhigi doona warbaahinta mid waliba halku ka tirsan yahay ciidanku ka tirsanaa iyo qoladiisu halkaas ay ku cadahay alxamdulillah rabbil caalamiin sidii caadada wahayd ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland guulihii uu ka soo hoyn jiray goobaha dagaalka ayuu ka soo hooyay wuu jabiyay afkay goosteen kabahay xagga dambe ka tuureen hubkoodii iyo saanadoodiiba waan la hadnay oo yaraan 20 BKM baa ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland kala haray laba baabuur oo technical abu kala haray oo jiib iyo dhashiika sida ku aragteen ku arki doontaan warbaahinta oo maxay ahayd aanu soo gelin doono intaba imiko ay saacadu tahay 12 duhurnimo oo ku dhow 12 ku dhawaada ayaa dagaal ku joogsaday wali teel baa sii socda laakiin way jabeen sidii caadada wahayd bay walba u jabi jireen intay ciidanka qaranka soo doontaan ayay maantana u jabeen ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee adag ee derbiga ee ku filan difaaciisa iyo cidii soo weerartay in afka jabiyaan sidii caadada wahayd afkay jabiyeen waana jabin doonaan wixii soo doonta waxaan ku soo gabagabeynayaa bulshada reer Somaliland ee jecel ciidankooda waxaan ugu bishaareynaa dagaalkaas oo muddada dheer socday in ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ku guuleystay kuna guuleysan doono waligiina guuleysanayo allaha boqorkiina uu guusha siinayo mar walba cadawga ciidanka qaranka Somaliland ama cadawga Somaliland markay ciidankooda soo doontaan ay kaba xaga dambe ka tuurayaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وحسن إسماعيل محمد حسن شاه iyo Nimcaan Axmed Dagaal warbaahinta qaranka Somaliland Laascaanood.